wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Wafdiga ayaa waxaa qayb ka ahaa madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Sheekh Axmed Shaakir Cali Xasan. Wafdiga ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka magaalada Gaalkacyo odayaal iyo waxgarad iyo qaybaha bulshada, waxaana soo dhaweynta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Cabdirashiid Xaashi Cartan. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo wafdiga ballaaran oo hogaaminayo kamid yahay madaxa xukuumadda Sheekh Shaakir gudoomiyaha labaad baarlamaanka golaha wasiirada xildhibaanada bahda saxaafadda shacabweynaha maamulka waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. salaan kadib sharaf weyn bay u tahay shacbiga meesha jooga maanta inay soo gaarto madaxdooda Galmudug heerarkooda kala duwan. waxaan u aragnaa inay nasiib iyo aayaha maalmaha taariikhiga ka mid tahay wax badan loo qabsoomi doonaa biidnillaahi. inta soo dhaweynta kadib waxaan rajaynaynaa magaaladii iyo inay noogu filan tahay wada hadal iyo xagga la sameyn doono. waxaana sidoo kale soo dhaweynta kadib hadal mahadcelin halkaasi ka soo jeediyay madaxa xukuumadda maamulka Galmudug. magaalada Gaalkacyo iyo shacabka Galmudug ee maanta noo soo dhaweeyay sida diiran ayagoon kala harin iyo ciidamada qalabka sida dhammaantood يعني سيدا يسوع دوية وفدي وقامنا مدحوينا أحمد دعالة جيل حاف وولي بقوله سي وزير هذا وطه هذه أيام وفرح سنة يسوع دوينتنا وأنا هذه ذكرنا عني. sidoo kale ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Axmed Ducaale Geela Xaaf, waxaana uu sheegay Axmed Ducaale Geela Xaaf inuu u yimaadeen sidii ciidamada la iskugu dhafi lahaa iyo wada tashiyo oo la qaadan doono bulshada qaybaheeda kala duwan. marka hore wixii hawl iyo waa isugu iman doonaa waxa ugu weyn aan u waxa weeye in bal horta sheekha noo keen baatada sheekhi waa ka waxaa kale oo u nimid insha Allah hawlo kale oo aad iyo aad muhiim ah sida ciidamada isku dhafkoodii iyo hawshii la qaban lahaa oo gobolka maamulka xiseenka loo qaban lahaa. intaas ayaan maanta u nimid iyo hawlo kale oo yaryar waa wixii war ah iyo wixii siyaada ah dib ayaan ka sheegi doonaa.